نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم. وزيرك دولشت هودا دولة فدرالك يماريالك سياسة كله وزيرك تيمك أو كونفور قلبيد دولشت هودا يماريالك سياسيالك مرتشرف تكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام runtii sharafay noo tahay inaan maanta aan munaasabadan xarig jarka oo taawarkii airportka magaalada Baydhabo aan ka soo wada qayb galno goobjoogna oo ahaano taas Ilaahay mahadiisa waaye maalintii la bilaabayay way dheeray laakiin annaga waa nala dhaweyd oo daraaday ahayd wuxuu socdaa muddo hal sano iyo wax la jira ah halkaas sana iyo waxa la jiro waqtiga si kastaba ha u socdo laakiin waxa la qabtay shaqo aad u fiican iyo taawar qurux badan oo meelo badan aan ka sameysnayn runtii aadan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay oo ugu horeyso dadkii deeq bixiyaalka ahaa oo bixiyay lacagta lagu dhisay dowladda federaalka iyo wasaaradda gaadiidka federaalka oo ka soo shaqeeyay wasaaradda gaadiidka federaalka koonfur galbeed iyo maamulka airportka Baydhabo oo ayagana sidaas oo kale shaqo fiican ka qabtay ka shaqeeyay iyo cid walba oo hawl qayb ka ahayd ayagana aad ay u mahadsan yihiin dadaalka iyo juhdiga la geliyay intaas kadib airportka Baydhabo waa airport caalami ah ilaa iyo dhismihiisii hore iyo sidii u sameysnaa ilaa dowladihii hore oo kacaanka iyo ka horeeyay yaa la isticmaalay airportka labaad ee Soomaaliya oo ahaan jiray waana airportka ugu weyn haddana waxaa ku socdo dib u habeyn iyo dayactir lagu sameeyay runway-ga iyo dhismihiisa guudba lagu qalabeynayo waxaan jecelnahay insha Allah sidaan oo kale ayadana inaan u furi doono dhismaha guud ee airportka isagoo sidaan ka qurux badan kana diyaarsan yaan furi doonaa sidaasoo kale sida ay horey u ballan qaadeen wasiirka iyo maareeyaha guud ee aviationka qalabkii loogu talagalay taawarka iyo airportka si uu u noqdo airportka labaad ee la isticmaali doono u noqdo in ayagana sida horey loo ballan qaaday muddo badanna aan sugaynay sida ugu dhaqsaha badan loo keeno aad iyo aad u mahadsantihiin wafdiga wasiirka hogaaminayo nooga yimid Muqdisho ayagana aad ay u mahadsan yihiin soo dhawaada aadaan kugu mahad celinaynaa wada shaqaynta iyo xiriirka joogtada ah waxaan jecelnahay maadaama aad timaadeen in aan isbedel muuqdo la arki doono hadduu Ilaahay yiraaho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.